بسم الله الرحمن الرحيم. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وحنا والله marka qof ilaahay umuriisa u ururinayo wax ka kala tuuri kara male wixiisa dhanba ilaahay u sahlaya meeshu maro dhanba sahal ba ilaahay uga dhigi geedku saa u qaadaba ilaahay ba faa'iido ka siin umadaha ilaahay ba ilaahay u hagaajin dadkii qaraabadii ku soo ordi jirto dhanba ilaahay ka qaboojinaya oo maartay ummadii ba ilaahay maxabaga dhaxdeeda u dhigahaya marka وجمع له شمله أموريس يوحي كلا تكسنا إلى ما أصورون هي وأتت الدنيا وهي راغمة الدنيا دينا يلا طلب بس أما قصبا بيقول من حدات لمن الدرير كان يسكدوا بينه بمعنى وحوي حدات رفعت سنتها يطلبنتها هي وحي شريعة وقشها يرخص يفضضين يتيسير أمشي هذا لكن وان باهنا هي وان قاچيسنا هي فقر بقى هي حدود الشريعة هو جد بي ساس معنا طلبات ويا صبره الله تبارك وتعالى صبر كي كالميسو صبرنا كالميسو حدود شريعتنا كوتشر وشعب بابان دوغري بابين ورق دماني ومش أقول إنه يا ما سكاري بعدك سيما هذه الجات تجيب وين كل قرن صوت ولا سامعين حسوات بابا عين قالوا عليه يا إنه بابوش إمرأة كبيرة يا لكن يا أستاذ موجود بعد بدل أوكي بعد بدل بدل كل سويس هدينا كانت إن شاء الله مدري يوحوا أموري هدا فهم سنتهي وأقول أصلا معايا مخايد يسوقها يمسجدك هي كربحها لبدو كيف الحكومة كيف الحكومة بفهم لبدو كيف مهمة بفهم لبدو مثل أمرها كم قطعي أبو فكري سواء كيف بفهم لكن هذا بدنا وحاول رداد قلب جود وبسليه أو خير كأن موديني بورتيري بنوني سوق هنا نفس السنة شيء سوق يعني مراقبينها أيوه هري أيك هو انتفاعية بدنا وحي أباهين شواغش إن إسكا مشغوليانه انتي ما أنت معركة إذا مسكحة أيديجيان يصير في ولا يصيب بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فرموها بمثل حصى الخذف والنبي يقول ورددي هو بركيان وبركة كلا ديلين بركيان وبركة كلا أصيبين وصيدي بكو أصيبين مركات شمرات كي توران إنسان فينينك وحليك تورا أما فرقنك يعني تورا بان النبي يقول صلوات الله وسلام عليه بلشدة مسلمين توحوكو ربينيا وحال بريا قيمها قفك فبما رحمة من الله اللي انت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نحريس إلهي سبحانه وتعالى حق سكاتي أي اللي انت لهم هذا وجه الإحسانات هذه قف هذا جفاف نقول لها ويكاكل ديد لها ويكاكل تجي لها ما هنا الحلقي كانينه لكن مقال وحو انت أي قضيين في المي قار هديدا كتيران وحق واحد له هو الرقصة ما تغنى وجداه للك دبدا كل تيران marka qaar koodna waa ku dhibayaan soo bixintooda waa aasan yihiin kuwana hadaa saa tiraahid baa ku soo fuqaya quwax waa la dhahay waa la ruugaa biyo iyo waxba laga ruugaa
marka waxaan rabnaa inaan idan tusino wuxuu inaanay wax weyn ahayn haddii saa la yidhaahdo wax iska soo fuqaya oo la tuuri karo inay yihiin danta guud ee ummadda ka fakaraya oo qiimo leh marka in malahaas la wanaajiyo oo madmadowga dadku kala aaminsan yihiin ama gumaystihii ka tagay iyo shaa'icaadka uu afuufay ha noqoto ama waxa uun dadka aan danta ummadda ka talinayn ay boonboonayaan ha noqoto iyo waxyaalaha saas oo kale in loo maleeyo dadka mu'miniinta ma waa in xusnu dhanni la abuuro oo dadku wanaag isu maleeyaan oo khayr loo kala sheego reer hebel waa dad ummadda wax ugu qaybsan oo deegaankaas dad ummadda wax tar u weeyo dadkaasi dad ummadda dadaalkeeda iyo diinteeda si loo hormarin ku jira weeyo ficlan halka laba kooxood baa isku dishay halka laba kooxood baa ku warantay anu koox hebel baa raacsanay adiguna koox hebel baa raacsan waa dad abaar iyo dhibaato iyo dhiig iyo cadaab iyo dawlad la'aan iyo kala gogo baaba qax burbur dhibaato ay ku socoto waxay ka waramayaan dawladda annaga helnay annaga baarlamaanka helnay annaga xukuumadda helnay annaga qaadanayna may waxa la soo dhisaya bisha dambe may waxa la keenaya sanadka dambe may waxa la keenaya halka may adduunka maartay noo soo gurmanay may maartay meel heblaaya shir lagu qabanaya may meel heblaaya ayu qulubin hadi qulub mayta ummadda qalbigeedu dhintay way ummad toobad keenida way mad dhig ku socoto way meel dhig ku socdo abaar laga ma weynay alxamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى لقطات ير أما حوغا ير وقبص أو قاض الشمارة يصور يعني ما أنت بحول الله وفضله يعني ماشي كسمين مركز الفرقان أو بمباسكو يلا أيضا تاريخ ذا أيتهاي مدى قال لنا أيت ميلادي تطبيق اللباتنكي بشي فبراير اللبات سنة اللبات يكون كوية طبنكا isla markaana waafaqsan hijriga rabiicul awwal 24keedii 1432 hijriga culimada maanta masaajidka al-furqaan alxamdulillah fadliga ilaahay aanu ku kulannay oo maan rabno inaan u soo tabinno walaalaha ka wada qayb qaatay masaajidka dhismihiisa waxaa dhinaca aniga cabdiraxiim cabdullaahi dhabar waxaa midigta iga fadhiya sheekh cabdiwahaab isxaaq oo mas'uulka dacwaga masjidka al-furqaan markaskan al-furqaan waxaa ku soo xiga oo dhinaca kale ka ah sheekh maxamed cabdi umal oo garanaysaan maartay muxaadaraadkiisa aad aragteen iyo asagaba waxaa ku sii xiga sheekheeni maartay al-faadil sheekh ahmed ama doctor ahmed maartay taahir oways ba ku xiga dhinaca kale waxaa ka akhuna sheekh maartay cali usama sulaymaan oo asna cudwiga dacwiga markasta furqaan waxaa asna dhinaca kale ka ah akhuna maartay maxamed xuseen caraale ku magac dheer oo asna culimada masaajidka duruusta ka akhrida kamida darafta u dambeeya waxaa jooga asna akhuna maartay sheekh ibraahim maxamed maxamuud oo imaamka masaajidka ah al-furqaan marka kalimaadkaas waxaan hadda ku bilaabayaa sheekhana sheekh cabdiwahaab maartay isxaaq inuu maartay xoogaa yaro iftitaax ama kelima masaajidka ku saabsan dhamaadkiisii wuxuu maartay insha Allah iyadoo soo gaabinayno falyatafadal sheekhana sheekh cabdiwahaab masaajidka al-furqaan maadkiisii iyo ama bilowgiisii iyo intuu qaatay iyo maaragtay sida dadku hadda uga faa'iideysteen iyo maaragtay dowrkiisii wax yar oo mulakhas insha Allah ta'ala fadal الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ولا لي الهرت روحان جوجنا مساجد الفرقان أما مركز الفرقان أو كويا المنباسة مركز كان وحال فربشي رجب سنة كي هراء كنا فربقل كو يصدم كي هجرجا وكو آدنيد بشي لحاد سديد طبعا كذي سديد طبعا كي بشي جون لبكون طبعا كي ميلادية الحمد لله رنتي أنا فرصة قالي كفادي سنة يا مساجد كان أما مركز كان أولا نرتر وحوية من ثمرات التعاون iskaashiga walaalaha muslimiinta ah oo Kenya khaasatan Mombasa jooga iyo walaalaha hadda aan u duubayno kelimadan aan rabno inaan ka siino macluumaad markaska aan dhax fadhino iskaashiga ayagoo ka shidal qaadanaya Allah subhanahu wa ta'ala qowlkiisa wa ta'aawanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'aawanu 'ala al-ithmi wal-'udwan ayu ku yimid الله سبحانه وتعالى وبركيي ومركز كان رنتي صدح طبق بو ككوبن yahay sida alqataadka kale aad ku arki doontaan dad badan baa ka faa'iideystay alxamdulillah xagga salaada taqriiban ilaa 700 qof baa ku tukan karta hadda waxaan fadhinaa tabaqii dhulka
dabaq baa ka hooseeya oo basementiga ku jira makaatib iyo wuxuu ka kooban yahay maktaba waxaa naga sarreeya dabaqii dumarka gabdhaha ku tukada waxaa ka sii sarreeya dabaq labaad oo ragga loogu talagalay way ku tukadaan jimcada iyo muxaadaraadka iyo duruusta waaweyn waa la isticmaalaa waxaa loogu talagalay dabaqa u sarreeyo sadxiga in sha allahu tacaala waqti dhow in qayb taxfiidka dhowr galaas oo taxfiidka ah in maaragtay laga dhiso dhinaca gabdhaha qayb waxaa jirta ayadana madras ahaan loogu talagalay oo dabaqa saddexaad oo ragga ma garanaysaa 2 galaas iyo xafiis yar ay ku leeyihiin marka runtii dhulkiisu waa yar yahay laakiin alxamdulilah sida uu ugu habboonayd baa looga faa'iidaystay asbuuca duruus joogta ah 7 maalmood ama 7 habeen asbuuca duruus baa ka socota culimada hadda la idin taariifinayay baa duruus joogta ah ka akhrisa sheekh cabdiraxiim abulcaynayn dr axmed طاهر sheekh ma garanaysaa maxamed xuseen caraale imaamka naftiisa sheekh ibraahim sheekh maxamed umal naftiisa markuu noo yimaado jumcooyinka khudbada jumcaha asbuuca ama 2 asbuucna la joogo duruus yar muxaadaraad baa laga faa'iidaystaa marka xaqiiqatan waxa way dadka reer Mombasa sida la sheego mid 100 sano ku dhow bay degan yihiin meeshan xeebta ama Mombasa uma suurtagelin in ay helaan fursadan oo kale aad iyo aad bay runtii maaragtay isbedel weyn mujtamacii deganaa dhulkan ay ugu samaysay rag iyo dumar iyo dhalinyaro iyo caruur intaba masaajid ay leeyihiin ayagu ay maamulaan oo barnaamijkiisa dacwada iyo cilmiga ay gacanta ku hayaan bay heleen waxaan leenahay ragga walaalaha oo runtii arintaas kaalinta fiican ka geystay Allah subhanahu wa ta'ala ka abaal mariyo sida nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam uu nagu yiri haduu qof wanaag idin sameeyo fakaafiuhu abaal mariya hadaan lahayn wax lagu abaal mariyana u duceeya marka anagu waxaan leenahay jazaakumullahu khayran sadaqa jaariya Allah idin kaga dhigo maqbuul ah dambi dhaaf Allah idin kaga dhigo Allah idin kugu naxariisto Allah dhibko dhanba idin ka koriyo meel dhib badan baad kulleeytaba joogtaan ma garanaysaa dadkii hawshan ka qayb qaatay dhammaan rag iyo dumarna Allah subhanahu wa ta'ala ka abaal mariyo jannadiisa wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin jazakallahu khair sheekhana sheekh Abdul Wahhab kelimada qayimka uu yiri haddana waxaan ku xijisiinayaa sheekh Maxamed Cabdi Umal oo insha Allah taasna kelima kooban ka dhahaya waliba khaasatan walaalaha Holland jooga dhalinyarada ama ka qayb qaatay muslimiinta ka qayb qaatay masaajidka si khaasaneed ba asaga u sii garanayeen ama waxaan dhihi karaa hamz wasligii maartay isku xidhay khaarijkii ee gudaha ayuha marka insha Allah taala inuu asna kelima arintaas uu ka yiraahdo waan ku soo dhaweynaa sheekhana fali tafadal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد شيخ عبد الوهاب شرحي مساجدك إيو باهيدي لو قبي إيو دورك إيو كالنتا وهذا كجيرو مجتمع منباسة دقن سيقود سيقارنا مجتمع صومالي Mombasa degan runtii Ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu qadaray bay ahayd masaajidkuna wuxuu ku dhismay saan ka war hayno dadaal badan oo walaalaha reer Mombasa ganacsatada iyo tujaarta iyo la isu geeyay iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan wadanka Holland iyo ragga culimada iyo ducaada la jooga dadaal ay sameeyeen oo iyagana ay lacag ku soo ururiyeen